الله يسلقرب. بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan salaamayaa dhammaan shacabka soomaaliyeed meel kastoo dunida ka joogtaan, khaasatan shacabka geeska afrika, soomaaliya iyo wadamada la dariska shanta soomaaliyeed meel kastoo dunida ka joogtaan, khaasatan afrika. bacda salaan, waxaan caawa barnaamijkeenii siyaasadda geeska afrika kaga hadlaynaa xaaladda guud ee soomaalida geeska afrika oo ah xaalad colaadeed. 1991 meeshii aynu taagnayn baynu hadda taaganahay. guud ahaan waxaa jira waddanka soomaaliya min raas kamboni ilaa iyo gedo ilaa lughaya waxaa laga abaabulayaa colaado qabiil iyo colaado goboleed si loo hor istaago jiritaanka ummadda soomaaliyeed. waxaana qeyb ka ah rag villa soomaaliya jooga oo u adeegaya shisheeye. sidaan ka wada warqabno xaaladda guud ee dalka, siyaasaddii oo qasan, colaado la abaabulayo, hubkii iyo dhaqaalihii waddanka oo lagu bixinayo sidii ummadda la isaga horkeeni lahaa. xasan sheekh maxamuud oo waddankii lagu wareejiyey waddan aan ahayn maanta dhex fadhiya 3 sannadood iyo badh kadib. maalintii farmaajo ku wareejiyey iyo maanta waxaa u dhexeeya farqi weyn waddankii. qof kastoo soomaaliya oo muqdisho jooga ama soomaaliya gudaheeda jooga ayaana markhaati ka oo laysu sharaxi maayo. markaan kasoo tagno xaaladdaas, dagaallo baahsan oo siyaasadeed oo uu gobollada oo dhan ku qaaday ayaa ka socda gobolka gedo, gobolka shabeellada hoose, shabeellada dhexe. hadda wuxuu dhex fadhiyaa dhuusamareeb, galmudug buuna wax ka wadaa, wuxuuna rabaa inuu gaalkacyo dagaal ka rido. xasan sheekh maxamuud wuu diiday inuu la heshiiyo puntland, madaxweynaha puntland dani. wuxuu kaloo diiday inuu la heshiiyo axmed madoobe oo ugu talagalay inuu xukunka ka tuuro ama maamulka ka tuuro. sidaan ka wada warqabno, xasan hadda wuxuu magaalada muqdisho ka abaabulayaa boorama inuu dagaal ka rido. marxaladda uu xasan gaadhay nin madaxweynaha oo marxaladda ilaa heerkaas xumaan abaabula xasan ka horto lama arag soomaaliya. sidaan ka wada warqabno, magaalada laascaanood dagaalkii ka dhacay lug weyn buu ku lahaa isaga iyo fiqi. markii dagaalku dhammaaday baana la ogaaday wixii hub ahaa iyo wixii siyaasad ahaa ay wadeen oo dhan. hadda danay leeyihiin bay wataan, ujeeddaday leeyihiinna waxa weeye
sidii loo burburin lahaa nabadda iyo xasiloonida siyaasadeed ee ka jirta Somaliland si marxalad qasan ay u gasho Somaliland. Ujeedadiisuna ay tahay inaan aqoonsi caalamiga ayna hawaysanin, gudahana ay ku qasbanaadaan inay dowladda federaalka la fadhiistaan. taas waxaa ka shaqeynaya oo qayb ka ah Ismaaciil Cumar Geelle iyo dowladdiisa Jabuuti. Ismaaciil Cumar Geelle wuxuu uu caawa u fadhiyaa sidii uu hor joogsan lahaa barnaamijka America ka socda ee uu hogaaminayo Ted Cruz oo ah barnaamij siyaasadeed oo dowladda Mareykanku ay wadato oo badda cas ku socda, kaas oo aan waxba ka qaban karayn. qaabka aan waxba uga qaban karayna waa caddahay. Mareykanku dana ay iyagu leeyihiin bay wataan. Jabuutina waxay u arkeen meel Shiinihii gacanta u galay. ujeedadooduna waxa weeye Red Sea iyo Babel Mandab iyo gacanka cadmeed inaanay cidna u daba fadhiyina iyagu ka taliyaan baa ka go-an Mareykanka. sidaa daraaddeed cadan waa fadhiyaan oo dowladda Imaaraadka cadan u fadhida. dhinaca Suudaan iyo Eritrea iyo Masar iyo Sacuudigana waa fadhiyaan. Babel Mandab weeye meesha ugu muhiimsan iminka ay berbera u rabaan. ujeedadooda ay iyagu leeyihiin baana ka weynta Somaliland leedahay. sidaas weeye in ay dadka Soomaalidu fahmaan marka hore. colaadda Soomaalida dhexdeeda in la sii huriyo waxba ma tarayso. Somaliland oo la aqoonsado ama aqoonsi hesha ma aha inay cadow tahay oo ay ummadda Soomaaliyeed dhibaato ku samaynayso maaha. haddii ay Soomaaliya ku soo biirtana ma aha inay cid dhibaato ku hayso ama Somaliland dhibaato ku tahay. ummadda in laysu soo jiido oo la walaaleeyo oo la isbahaysto oo wixii khatar ah la iska bahaysto ayaa ka fiican in la isku mashquulo oo cagaha la isjiido. waxaa kaloo jira Soomaalidu 5 beelood bay wax u qaybsatay. beesha direed madaxdoodu waa kuwa ugu daciifsan ee ku nool geeska Afrika. magaalada Addis Ababa iyo Dirdhaba iyo Mooyaale iyo Nageyle iyo Herar iyo Jigjiga iyo Jabuuti iyo Boorama iyo Awbarre iyo maaragtay Awbarre iyo Wajaale iyo Gabiile iyo Hargeysa iyo Burca iyo Berbera. dadka ugu badan weeye geeska Afrika ku nool ilaa iyo Tana River ilaa iyo waxay ku nool yihiin dir. haddii ay xoogooda isbahaysi samaynayaan oo dhinac wada jeesanayaan cidina ma haweysateen. maanta nin xamar fadhiya inuu kolba mid u yeedho oo uga yeedho Boorama iyo Hargeysa iyo Burca iyo uga yeedho, marna uu Laascaanood u yeedho, marna uu colaadiyo nimanka jooga Garowe jooga, marba maanta haweysto xasan inuu dadkaas midba mid u yeedho madaxa isu geliyo. waa daciifnimadooda. waxaan qabaa xasan sheekh maxamuud in si saxa loola dhiilgareeyo, in dir isu bahaysto xasan oo xasan wadda la mariyo oo dagaal lagu kiciyo oo nacaskan uu adeegsanaya Jabuuti fadhiya lala hadlo oo loo sheego oo la dagaal qowmiyad dhan lagu qaaday buu ninkani wadaa. dagaal duulaan markii Tigreegu ay Addis Ababa haweysteen macawis buu halkaa ku xirtay isagii wasiirka gaashaandhigga ninka ah. hadda waxay la safnaayeen Tigreega, waxayna ka soo horjeedeen 9kii Soomaali niman ka soo jeeda oo Tigreeg meel iska saaray bay ka soo horjeedeen. Soomaali oo dhan iyo Oromo iyo Canfar iyo shucuubta koonfureed Israaciil baa dhinac loo wada jeestay. xasan iyo wasiiradiisa oo fiqi ku jiro Tigreeg la safnaayeen, dadkii Tigreega ka hadhay bay ahaayeen. maantana ilaa Turki ilaa cid walba ay adeegsadeen siday colaad uga dhex abuuri lahaayeen waqooyiga ama Somaliland. waxaa weeye shacabka Laascaanood ku nool iyo guud ahaan waqooyi bari maamulka hadda la dhisayo
kiiskoodu wuu ka duwanaa weligoodba khaatumo dowladdu waa ka horreysay khaatumo 20 sano ayaa abaabulkeeda la waday cali khaliif galeydh karaash maaragtay intaasoo nin baa isu kala bedelay qadiyadoodu waa ka horreysay xasan sheekh maxamuud iyo fiqi inay kula dhuuqaan oo adeegsadaan oo ku burburiyaan somalilan oo iyaguna ay hadhowta cod ka raadsadaan mooyaane ma aha inay wax tarayaan waqooyi bari wax tarayaan walaaladood puntlandna inay waxay rabaan ku toojargareeyaan taas waxaa looga fadhiyaa reer waqooyi bari inay dantooda gartaan oo ay dariskooda la heshiiyaan oo labada dhinacba ay dad walaalahoodaba ku noole ayna u soo raacin inay hayaan qodobkaa waxaan ku darayaa dowladda jabuuti oo caawa ilaa xalay ilaa shalay waali ku dhowaatay sidii warqadda Ted Cruz loo soo hadal qaadee loo wadwadayba waxa weeye waxyaabo badan oo dadku aanay fahamsanayn baa jira siyaasadda Maraykanka idaacadaha iyo markay gaadho warqadaha iyo lasoo qoray iyo markay levelkaas soo gaadho banaanka lasoo dhigo waa siyaasad lasoo karkariyey oo muddo laga soo fakiray oo sanadka wasaaradda arrimaha dibadda Department of Foreign Affairs maaragtay safaaradaha meel walba lagala soo tashaday oo looyara lagala hadlay oo wax walba lasoo shiilay baa sanadku ay soo bandhigaan oo banaanka soo dhigaan siyaasaddan uu Ted Cruz ka hadlay maaha Somaliland kaliya kamay hadal global caalamka oo dhan sidoo Maraykanku ula dhaqmi lahaa siyaasadeedii oo ay sanadka foreign affairs ka Maraykanka nimanka madaxda ka ah ee sanadka ay soo diyaariyeen weeye qayb kamid ah nuqul kamid ah baa Somaliland waxaa loogala hadlay in aqoonsiga dalkaasi uu muhiimad u yahay dhaqaalaha iyo istiraatiijiyadda military ee dowladda Maraykanka iyo dowladda Israa'iil ujeedada dowladda Maraykanka ay arrinkan ugu dartay global policy-ga ay sanadku soo bandhigeen waa siyaasad muddo dheer laga hadlayay oo almost intii uu hadda madaxweynaha ahaa oo dhan ay diyaarinayeen teeramkii horena Ted Cruz himself ninka sanadka ee arrinkan soo qoray laftigiisu teeramkii hore aad buu arrintan u baadhay oo u diyaarinayay Trump markii hore 5 sano uu ahaa madaxweynaha 4 sano على حال سياسة داسمها سياسة صومالي دا أطالة سياسة صومالي لان إن عيدا كتم ماها سياسة دان وسياسة مريكا كوليه هاي وغولف اوف عدن كان كعدمت باب المندب يرهدسي سياسة تاينا لوغا ساريو وأي مريكا كوحيتي سنيان دولكو دووية دولكا يو آمسيين دادكا تاريخ دا أي كدحيان إلى شرعين dhaqaale ahaanna way rabaan oo mineralska waddanka ka buuxa way u socdaan haddii markaa Maraykanku uu dantiisa ka dhex arko Somaliland Djibouti waxaa u fiican inayna colaad gashanin dowladda Somaliland iyo shacabkeeda ay walaalaha yihiin Soomaali 5 bay ahayd 5tii Soomaaliyeed mid ka mid ah way Djibouti Somalilandna waa mid ka mid ah cidina ma qasbin Somaliland cidna midnimada kuma qasbin haddana cidna ma qasbi karto haddayna iyagu rabin cidna ma qasbi sida aan reer waqooyi bari ama reer khaatuma aan loo qasbi karaynin oo ay danahooda meeshay doonaan u aadi karaan saasoo kale ayaanan Somaliland loo qasbi karin dowladda Djibouti dhul yar oo awdal haafkeed ah weeye Soomaali oo dhan waxay u aqoonsantahay inay dowlad tahay awdal gobolka awdal haafkii ma leega Djibouti Somaliland oo dowlad intaasoo 1,000 kilomitir oo square ah in loo hayo oo loo curyaamiyo dekada Djibouti oo loo baabiyo ummadda dhan Soomaalina godob ay ka shaqeynayso way waxaas ka mid yahay iyo fiqi Ismaaciil Cumar Geelana arrintaa uu eedi doonaa ama Djibouti ha noqoto ama Ismaaciil uma noqoto anigu waxaan qabaa
waxa heshiis lagu yahay oo ummaddu raalli ku wada tahay oo walaaltinimo in laga shaqeeyo haddii la kala danaysanayaan khaliijkuba waa kala danaysteen dowlad walba goonideedii dowladu leedahay isbahaysina waa ka dhexeeya waqooyi bari puntland galmudug jabuuti waa ugu yar galmudug baa xitaa ka weyn maxaa galmuduga waxaa ka weyn awdal haafkeed baa ka weyn marka in loo curyaamiyo ummaddan xaafad yar waa godob weeye soomaali ka shaqaynayso mana qabo anigu personally ma qabo jabuutina inay dowlad noqoto somaliland la dowlad ma noqonayso ma qabo arrinkaa waxaan leeyahay ha laga waantoobo wixii dadka kala fogeynaya colaad abuuraya waxaa jira arrintan madaxweynaha somaliland iyo kooxda ku hareereysan way ka seexdeen etoobiya waxaa ka taliya madaxweyne dir baa ka taliya nimanka etoobiya jooga axmed sidale leh abiy axmed leh shimaalad leh wasiirada dhan macaa wasiirka petroleumka waa reer awbare wasiirkii ganacsiga wasiirkii arrimaha gudaha waa kamaal af soomaaliga af oromo isku sibu ugu hadlaa wasiirka maaliyadda waa axmed shide waxa weye dhowr iyo 10 wasiir baa dira oo federaalka ah oo ra-iisul wasaare ku-xigeenkii baa ah waxa weeye dowladdaas direed ee geeska afrika ugu awood badan leh in niman soomaali ah oo caasimadii soomaaliya fadhiya inay ka shaqeeyaan inay dumiyaan oo ay tigree usoo raacaan waxay caddaynaysaa colaadda qabiile halka soomaaliya la kala joogo anugu waxaan qabaa dowladnimada soomaaliya in dib loogu noqdo oo qowmiyadda direed ay tashato inay soomaaliya oo dhan ka baxdo oy dowlad kala dhisato qaabka ay wax u socdaan waa in lagu kala tago ayaa la wadaa fiqi iyo xasan sheekh markay somaliland duulaan ku qaadayaan dhinacaana biyomaal shabeellada hoose ay cunaqabateeyeen oo ka ilaaliyeen dowladnimadii horumarkii ka ilaaliyeen waxa ay laascaanood ay u dhisayaan maxay gobolka shabeellada hoose ugu dhisi waayeen iyo jubbada hoose waayo ay dadkana kuwaana cunaqabateynayaan kuwana ay maaragtay dagaalka ugu furayaan colaad qabiil oo qabiil ku salaysan ayay fiqi iyo xasan sheekh ka wadaan villa soomaaliya diroo dhan bay duulaan ku yihiin horena waa uga hadlay haddana waa ku celinaya anigu ka hadli maayo maamulka ay dhisayaan waqooyi bari wuu ka horeeyey khaatuma way ka horeysay iyaga ujeeddada hadda ay wataan ee siyaasadeed waa gooni laakiin teeramkii hore xasan sheekh maxamuud anigoo shabeellada hoose jooga 95 technica ama magaalada raaxoole ama number konta kusoo weeraray suu istiraatiijiyadda airportka u qabsado 95 technica 35 baa ka baxay 60 baabuur baa looga qabsaday qaarna ka baaba'een dagaalkaas xasan wuxuu soo wacay janankii burundi u fadhiyey magaalada number konton airportka ag joogay wuxuu yidhi waxaa dagaalamaya shabaab iyo dowladda federaalka ah deg deg ha loo dhex galo oo dowladda ha loo hiiliyo janankii burundi baa la yaabay oo yidhi soomaalida meesha ku dagaalamaysa waa 2 qabiil xasan sheekh inaad shaad dowladeed usoo xidho reerkaaga reerkii kalena aad ku shaabadayso shabaab anigu markaa number konton baa jooga ciidankii ka dagaalamaya number konton ee uu xasan kusoo duulay baa dhex fadhiya uu shabaab ku sheegayay markii looga adkaaday burundi buu la hadlay inay difaac galaan oo ay la dagaalamaan ciidamadii uu isagu keenay ciidankii jabiyey xasan ilaa waagaas ilaa hadda dagaalkii buu ku jiraa shabeellada hoose waa cunaqabataysan tahay guddoomiyihii gobolka shabeellada hoose magaalada marka waa la khaarajiyey markuu yimi baa shabaab dad aan ahayn oo shabaab sheeganaya miino ku qarxiyey gobolkii magaaladii oo dhan baa la qarxiyey maalinta dagaalka uu hadda ku wado waqooyi ama somaliland ku wado ee uu isaaq ku wado
biyamaal buu kusoo baabiyey oo farmaajo ka qabtay oo ilaahay uga soo diray haddana way cunaqabaytaysan yihiin oo mushaharna looma diro horumarkana waa laga ilaaliyaa gobolka shabeellada hoose wax galaa ma jiraan wax ka soo baxo oo laga soo dhoofiyo mooyaane wax loo geeya ma jiraan atool ummadda soomaaliyeed waxaan u sheegayaa markaa madaxweynaha soomaaliya reer keliya kuwa duulin isaga shaksi ahaantiisa qabiilkiisii way kuwa siinaay uu ku gubayo ee dhulka ka qaaday dadka uu hadda duulaaga ku qaaday rooble iyo khayre iyo cabdiqaasim jifooyinkoodii weye dadka guryaha laga duminayo ee dhulka laga qaadaya qayrinaya beesha hawiye kuma taageersana xasan xaqdarrada uu soomaaliya ka wado ra-iisul wasaare rooblaana ka hadlay arrintaa oo waxaa ka hadlay ra-iisul wasaare khayre caawana odayaasha beelaha hawiye ninkaa gadaashayda odayaal badan oo beelaha hawiyaha baa ka hadlay in odayaashii hadlay ay qaldanaayeen xasanna uu yahay daalim ummadda dulmi ku haya oo soomaali oo dhan duulaan ku qaaday isaga shaksi ahaantiisa cuqdad qabiil iyo cuqdad ummadda soomaaliyeed oo dhan qaba laakiin beeshiisu waa ka nadiif waxa uu xasan ku dhaqmayo mana taageersana waana uga digaynaa ummadda somalilan beelaha ay ka dhasheen dadka waxa wada shaqo kuma leh beelahooda siyaasiyiintani waa siyaasiyiin dana shaksi wata waxaasan hogaaminayo fiqi hogaaminayo kulligood waxaan ugu baaqayaa baarlamaanka federaalka soomaaliya mooshinka ay ra-iisul wasaaraha ka wadaan intay joojiyaan mooshin madaxweynaha ay ka wadaan inay keenaan qodobka halkaasaan uga baxaya waxaa jira oo aan rabaa inaan ka hadlo shacabka soomaaliyeed ee qurbaha ku nool khaasatan yurub iyo america iyo wadamada western welka ah ubadkooda qurbaha ku dhashay waxaa dhibaato weyn ay ka haysataa diintii iyo luqadii ummad haddaad maqasho sumadeeda koowaad waa luqadda dadku way isu egaan karaan innaga iyo etoobiyaanka waa isu egnahay laakiin waxaa ina kala sooca waa luqadda soomaaliga ah in ilmaha la baro waxay ka mid tahay diintoodii in la badbaadiyey si ay ilmuhu luqadda u bartaan waa in loo daaraa barnaamijyo guryaha dhexdiisa xagga ay kartoonada ingilishka ka daawanayaan waa in barnaamijyo luqadda soomaaliga ku baxaya ay dhegaystaan oo ay akhristaan si luqadooda u badbaado taasi waa talo guud oo aan u soo jeedinayo dhammaan soomaali oo dhan xitaa dalka gudihiisa kuwa jooga saameyn bay ku yeelatay ilmihii mobaylo iyo ibad iyo telefono iyo telefishinay daawanayaan luqado kaley daawanayaan soomaaliya gudaheeda dad jooga oo ilmahoodu aanay luqadda soomaaliga qori aqoonin baa jira waana musiibo wey 80% caruurta soomaaliyeed ee baadiyaha jooga af soomaaliga ay ku hadlaan ma qori karaan 35% ilmaha magaalooyinka waaweyn lagu celiyey ee qurbaha laga keenay af soomaaliga ay ku hadlaan ma qori karaan waxaan ugu baaqayaa dhammaan shacabka soomaaliyeed meel kastoo joogaan waxaan soo saarayaa barnaamij aan caruurta ugu talagalayo oo af soomaaliga iyo qaabka looga badbaadayo in af soomaaliga loo baraya ah ma aha barnaamijkan mid caruurta kaliya ku socda barnaamijkan wuxuu ku socdaa waalidiinta laftigooda si ay ilmahooda luqadda iyo diinta u baraan qaabka ay u barayaan barnaamij gooniyaan u sameynayaa oo aan ugu magac darayo soomaali afka soomaaliga iyo adeer haabiil waxaan rabaa barnaamijkaas qof kastoo soomaali ah marka uu arko cajaladaheeda inuu u gudbiyo dadka uu yaqaano oo dhan si ilmaha ay uga bartaan luqadda af soomaaliga waxaan kusoo gabagabaynayaa waxaan taageersanahay oo aan bogaadinayaa dhammaan aqoon-yahanka odayaasha iyo ra-iisul wasaare roble ra-iisul wasaare khayre
aqoon-yahanka gobolka banaadir ka soo jeeda ee ka dhiidhiyey dhaqan xumada villa Soomaaliya ay kula kacday shacabka Soomaaliyeed ee dulman ee aan guryaha haysan ee aan masruuf haysan ee aan dowlad kafaalad qaada noloshooda haysan oo ciidamadii qaranku qaarkood ku jiraan caruurahoodii bannaanka inta la dhigo in dad ganacsato ah oo ama dilaaliin tuuga lagu wareejiyo dhulkii tarabuunka iyo horseed iyo siinay iyo xoogga cisbitaalka xoogga ugu yaraan 50% dhulkii dowladdu lahayd ee gobolka banaadir oo la gaday 50% kii kale miiskay saaraya suuqa yaala. arrintani waa arrin very serious horena looma arag dibna loo arki maayo xitaa gobolada Soomaaliya oo dhan gobol kasta oo Soomaaliya lama arag dhulkii dowladdu lahayd xitaa 10% dad iibiye lama arag oo madaxa wax lala yaabo wey. madaxweynaha Soomaaliya arrinkani waa arrinka kaliya ee maxkamad lagu geey karo xilkana looga qaadi karo. waxaan ugu baaqayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kastay joogaan in laga shaqeeyo sidii Xasan Sheekh Maxamuud xilka looga xayuubin lahaa si ummadda dalka Soomaaliya ummadda ku nool si ay u badbaado. waxaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkayga waxaan kusoo gabagabeynayaa in meel kasta aad joogtaan ummadda Soomaaliyeed inaad cooperation samaysaan oo aad isbahaysataan oo iskaashataan oo ka fogaataan dadka dibadaha jooga siyaasadda Soomaaliya ee kala qaybsanaanta waa inayna iyagu ka qayb qaadan isu soo dhawaanshiyo iyo wax wada qabsi inay samaystaan si ay uga badbaadaan dhibaatooyinka qurbaha ka jira. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soomaaliyagii gurmad buu rabaa. waxaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii Cabdullaahi Yuusuf Hanuuniye Allah caafimaad buu ha siiyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.